daafurka barnaamijka xeerka hagayaasha 16 habraacyada xeer sharci ee lagu maamulo shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo maanta lagu qabto hotel Mansour ee magaalada Gaasay waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee Soomaaliland wafdi ka socda World Bank shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyo masharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeynkaasi waxa ka hadlay oo daafuray barnaamijkaasi Cabdi Aadan oo madaxa mashruuca dib u habeynta shaqaalaha dawladda waxaanu ka hadlay ahmiyadda uu xirkan u leeyahay inaan mahad celiyo tiimkii isku soo dubariday ka soo shaqeeyay xeerarkan iyo hagayaashan shaqaalaha lagu maamulayo ee aragtaan maanta aan soo bandhigan hadii la ka dhigo runtii waqti badan bay qaadatay waxa ma hadda iskale alxamdulillah ilaahay ma hadda leh waxa kale ma hadda iskale Soomaaliland maamulka iyo hay'adda shaqaalaha iyo dhammaan wasaaradaha oo nagala qayb qaatay soo diyaarintii shuruucahan iyo hagayaashan shaqaalaha lagu maamulayo sidoo kale Professor Mubarak oo kamid ah dadkii wax ka qoray buugan ayaa isna aad ugu dheeraaday ahmiyadda uu shaqaalaha dawladda u leeyahay buugani Mr. Gorogori oo ka socday World Bank ayaa isna tilmaamay in hay'adda shaqaalaha dawladdu ay tahay furaha dawladnimo ee lagu hagayo shuruucda shaqaalaha isla markaana wuxuu aad buugaadiyay mashruucan dib u habeynta shaqaalaha dawladda Soomaaliland. It's my pleasure to be here on the day of launching the policies and procedures for HR management. I don't have to tell the whole room full of government officials how important are civil servants. They're the key and the core of any government function. And because they are at the core of everything the government is doing, they're also under most scrutiny. qaar kamid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda ayaa soo dhaweeyay buugan iyo xeerarka hay'adda shaqaalaha dawladdu ay soo diyaarisay mudane Farxaan Aadan Haybe gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo munaasabadaasi hadal dheer ka jiray waxa uu ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay habraacyada xeerkan sharci ee lagu maamulo shaqaalaha dawladda Soomaaliland waxaana uu yiri waa ogtihiin shaqaalaha dawladdu waa halbowlaha socodsiinta shaqada qaranka la'aantoodna shaqana ma socoteen adeegna lama bixiyeen hawlina ma socoteen wasiirna uma soconayso hawshu agaasimana u socomayso qarankuna adeeg wanaagsan heli maayo dabcan in shaqaalahaasi helaan xaq ay u leeyihiin iyo xuquuqaadka ka dhalanaya waajibka shaqada oo waxaynu siyaasaddan u aasaasnay si lamida waajibaadka lagu leeyahay xaqqa shaqada ku leedahay inuu qofka shaqaalaha ay dhameystiraana waa sababtaynu siyaasaddan iyo habraacyadan iyo nidaamyadan 16 u sameeynay waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo 16 habraac sharci inoo ogolaaday inay dhaqangal yihiin maalinta uu saxeexay ee wareegtada ku soo saaray kulli faaqan ee buugga ku jirta kaga tagi mayna halkaas waxaynu tababarro ku bixin doonaa min gobol ilaa degmo ilaa meel walba iyo wasaarad dhinaca kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Farxaan Aadan Haybe ayaa ku dheeraaday cadaaladda iyo xulista shaqaalaha iyo doorka uu xeerkan uu ka qaadan doono waxaynu doonaynaa inaynu taa ka gudubno oo inuu gudubno in system in place ah oo jira oo lagu maamulo oo cadaaladda inagu soo dhaweeyo oo cadaaladda u sugo shaqaalaha iyo shaqaalaysiinta inaynu meel marino waxaan aaminsanahay cid walba inuu yahay nasteex gabagabadii munaasabadaasi waxa iska dabamaro hadalka ka jeediyay wasiirka shaqagelinta Soomaaliland Marwo Hinde Jaamac Gaani waxaana tiri waxaan u mahad celinayaa hay'adda shaqaalaha dawladda oo runtii iyagu soo agaasimay munaasabadan qiimaha badan run ahaantii ilaa waqtigii ay hoggaanka talada dalka uu qabtay xukuumaddeena maanta jirta ee uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha maanta mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa lagu guuleystay in la hirgeliyo oo uu dhaqaaqo mashruucii tayeynta shaqaalaha dawladda kaas oo wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku ay ka tahay gudoomiyaha steering committee-ga waxaa farxad ii ah in la ogaaday oo la tiriyay guud ahaanba shaqaalaha Soomaaliland ay leedahay ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda Soomaaliland mudane Saacad Cali Shire ayaa isna soo dhaweeyay xeerkan waxaana uu sheegay in wixii maanta ka dambeeyay ay dhaqan gelin doonaan xeerkan marka ugu horeysa waxaan runtii
mar kale aan u mahad celinayaa hay-adda shaqaalaha dowladda ee soo agaasintay shirkan kana shaqaysay buugga halkan maanta laynoogu soo bandhigay dadaal badanna runtii muujiyey saaka waxaan la kulmay wafdigan inooga yimi World Bank-ka aad iyo aad bay ula dhacsan yihiin horumarka runtii ay hay'addu ay samaysay waxaanay diyaar inoo leeyihiin in taageeradayna siiyaan inay halkaa ka sii wadaan siina kordhiyaan waxaan kaloo doonayaa halkan inaan ka caddeeyo in haddaanu nahay wasaaradda maaliyadda ay naga go'an tahay inaanu dabaqno oo dhaqan gelinno buuggaasi